Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta kusoo dhawaada channelka Caaqil Tag. Muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan isla sameyno marka landing page-kan anagoo isticmaali doona marka Bootstrap. Website-kan marka wuxuu kaloo leeyahay waa mid responsive ah kaasoo ku shaqeyn kara marka any device. Haddii aan tijaabiyo marka responsive nimadiisa marka inspector-kaaga tag marka waxaad doortaa marka halkan responsive waad aragtaan marka shaashadaha waaweyn marka sidaan ayuu ugu soo muuqanayaa. And then haddii aan yareeyo marka oo aan ka dhigo marka device-yada yaryar ka mid ah isla markii waxaa samaysmaya marka responsive menu ama naafki kadibna inta kalena waad aragtaa. Haddii aan ka dhigo marka mid ka sii yar oo device mobile oo kale ah wuxuu u muuqanayaa marka sida tan. Haddii aad u baahantahay marka designer badan oo aad rabtid inaad coding u bedeshid waxaad ka heli kartaa marka front-end mentor kaasoo ah marka website aad ka heli kartid marka challenges badan oo loogu talagalay marka ardayda front-endiga ama dadka jecel inay noqdaan front-end designer in ay ku challenge gareeyaan. Waxaad ka heli kartaa marka website-kan haddii aan ku tuso waxaa la dhahaa front-end mentor IO oo yiraahdo waxaad tiraahdaa challenges waa kana marka waxaad ka heli kartaa marka challenges badan qaarkood waa free qaarkood kalena waxaad ku dhiibaysaa subscription. Wuxuu ku siinayaa marka design-ka iyo requirements-kiisa kadib adiga ayaad sameynaya marka asi code ahaan. Waxa waaye marka meesha ugu fiican oo aad ku sameyn kartid marka practice badan front-endiga. Okay, aan u gudagalno marka website-keena maanta waxaad tagtaa marka meesha aad ugu talagashay inaad ku qoratid koodkaaga. Aniga waxaan ku qorayaa marka Visual Studio. Waxaa ii samaysan marka imageska aan isticmaali lahaa marka intaan ku jiro coding section-kan. Waxaa kaloo haystaa file kaloo HTML-ka aan ugu talagalay inaan ku qorto iyo file kale oo igu jiro marka CSS-ka. Okay. Hadda marka waxaan iska xirayaa website-ka front-endiga. Waxaad tagtaa marka Bootstrap-ka documents ku sii dhufo. Kadib waxaan soo koobiyeynayaa koodkan oo ah marka startup-kii ama linkiskii ku saamixi lahay inaad isticmaasho Bootstrap-ka. Paste gareynaya halkan marka open with live server. Okay, sidaas ayuu ku yahay marka website-kaaga mid live ah. And then waxaan sameynaynaa soo darayaa marka linkiga aan lahay aniga ama CSS-kayga linkigiisa style markii aan ku soo daray marka isla markii waxaa isbedelay marka fontiga. Wax suuragelaya waxay tahay waa fontiga iyo soo import gareysan CSS-ka. Fontigan waxaan ka keenay marka Google Fonts oo aad ka heli karto marka fontiyo badan oo free ah. And then font family-gana waa kana. Inta waxaa kaloo ii diyaarsan root oo aan ku shubto marka variable oo ii hayaan marka colors-ka aan isticmaali lahay. And then waxaa ii samaysan marka halkan image walba oo la soo geliyo marka widthkiisa waxaa ka dhigtaa ayaan dhahay marka 100%. Okay. Waxaan ku hormareynaa marka in aan title-ka ka bedelo. Okay, title-ka waan u sameeyay markaad dirtaan. Waad aragtaan title-ka ayaa isbedelay. Waxaan sameynayaa inaan components-ka oo already diyaarsanahay oo Bootstrap-ka diyaariyay inaan Bootstrap-ka ka soo qaato kuwa kalena aan ku sameyno marka gacanteena. Inoo weynay shaashada. Okay, waxaad sameyn kartaa marka laba qaabood inaad search gareysid component-iga aad ratid iyo inaad inta ka fiirsatid sidebar-ka. Component ayaan joogaa kadib waxaad ka raadisaa component-iga aad. Marka kan ayaan rabaa component-igan waa soo copy gareystay. Waxaad tagtaa koodkaaga ku paste garee. Fiirinaynaa marka website-keena sida oo noqday hadeertaan. Waad aragtaa marka hadeertaan waxaa inoo soo gala marka naafki. Wareen waxaad sameysaa background-ka waxaad ka dhigtaa mid white ah. And then waxaa ka dhigaa mid oo ah fixed top
waxaan rabaa markii scrollka oo imaado inuu topka ku dhignaado mar walba. waxaan soo gelinayaa marka loogada image, waxaad tagtaa images, waxaad tagtaa logo, alt waxaan ku qoraa logo. marka imageka ma u baahna marka inaan css ka tago, sameynaya marka css inta ku qoraya marka rabaa widthkiisa inuu ahaado marka 100 pixel. logadeeda aad ayuu u weyn tahay, sidaas ayaa ugu dhigan marka. teeda kale waxaad kor ku sameysaa marka waxaan rabaa marka inuu wax yar dhirir lahaado. waxaa leeyahay marka 4 ka dhigan. waad aragtaan marka hadirta waxaa kusoo daray marka logadii. waxaan sameynayaa marka in aan bedelo marka nav bottomskan. waxaad tagtaa marka halkan ugu horeyn containerka fluidka ka bixi. container caadi ayaan rabaa, waxaan rabaa inuu noqdo mid center ah. waxaad tiraahdaa meeshaan features, meeshaan waxaad tiraahdaa marka team, meeshaan waxaad tiraahdaa marka sign in. qaybtan kalena li-gan ma u baahna marka iska tira asagan. waxaad kaloo sameysaa midkoo dhigan marka right ka dhig. sidaan uu dhigaa marka margin start auto. start waxaan ka wadaa marka left side-ka auto ka soo qaada. markaas waxay koosgarahay inuu ku dhigo marka derbiga. waad aragtaan navigationkeyga hadda waxaa bottomska waa kuwaan, logadan waa kana. qaybtan wuxuu kasoo qaatay badin, qaybtan kalena wuxuu kasoo qaatay anana badin kale, taasoo sameynaysa marka labadaas space waxaa sameynaya marka labadaas side marka waxaa sameynaya marka inay dhexda imaadaan ama space oo kasoo kala qaato waa containerkii aan fluidka ka bixiyey. design-keena noo noq marka hadeertaan waxaa kasoo baxay marka qaybtan waxaan ku xijinayaa marka hero sectionka iyo contentigiisa. waxaan iska sii kobiyeysanaya marka contentii koowaad ama qoraalka koowaad. meeshaan markaad imaadid naafka hoostiisa marka waxaan ku qorayaa marka waxaad ku qortaa marka inta hero section. sameynaya ama section id of hero wataa. wuxuu leeyahay marka container kaasoo leh marka rowgaas waxaa ku dhex jiro marka qaybtan iska xiriirta. rowgaas waxaa ku dhex jiro marka column kaasoo marka cabirkiisu yahay 12 column. laakiin markuu large screenka la joogo waxaa ka dhigtaa 6. waa columnka koowaad isla same saas isii marka columnka labaad. columnkan waa midka aan image kasoo gelinayo marka image isoo dhex dhig marka isla markii image leh waxaad doortaa marka illustration. meeshaan waxaa ku qortaa hero. inta waxaan ku sameynayaa marka yaana ilowin. waxaad tiraahdaa kan order first, laakiin order markuu yahay large screenka waa last. halkan marka waxaan ka wacayaa h1-kii waxaan ku neest garaynaa marka contentiga aawaday. leeyahay marka displaygiisu waa 4, font weightkiisu waa bold. aan soo fiirino marka waxa inoo sameysan. halkan marka waxa inoo sameysan waa h1-kii waa image-kii, laakiin waxaad arki kartaa marka inuu naafka hoostiisa ku dhex jiro. marka wax yar css ayaan u baahanahay. halkan imaaw waxaa wacdaa marka section. waxaan leeyahay marka badin ayaan ugu baahanahay. badin of 150 pixel. inta kalena waa 0 pixel. waad aragtaan marka wuxuu kasoo hoos baxay marka naafka. waxaan soo kobiyeysanaya marka contentii kale waa descriptionkii. hadan waxaan sameynayaa marka formkii. ugu horeyn waxaan ka bilaabaa descriptionka. waxaan leeyahay paragraph. hadan waxaan rabaa marka paragraphka inaan siiyo width cayiman. dhammaan paragraphyada inta ku isticmaali doono marka
alle max width-kooda ha ahaado 500 oo pixel waan fiirinaa marka waa same halkan ayaan waxaan rabaa marka inaan form soo geliyo aan leeyahay actionkiisa waxaa hash iska dhigo okay class row margin top of 4 leeyahay marka column waxaan ka iloobay marka column size-kiisa inaan sheego waa 2 alif laakiin marka large screen la joogo ahaado marka mid 8 ah another column kala inside ka sameynaa asagana 2 alif large screen laakiin wuxuu ku noqonayaa 4 mar walba marka waxaad haystaa 12 column mar walba inaad ku fikirtid waa marka aad joogto marka bootstrap inaad ka badinin marka 12daas column iskeeda waa btn primary waxaa ku qortaa marka get waxaan kaloo ka ilaabay btn waxay ka sii tahay large dhimdaa marka formki dhexdiisa waxaan ugu baahanaa marka input field leh text ka bedel marka email and then wuxuu leeyahay class kaasoo ah marka form control waa mid weyn form control lg haddii aan fiirino marka waad aragtaan okay designkana fiiri marka okay waxaan naga maqan marka inaan sameyno placeholderka aad tiraahdaa marka placeholder okay waan sameeyay marka placeholderka waxaan rabaa marka inuu kan ahaado width of 100 designkayga aad marka waad aragtaa width of 100 waa also responsive na wuu yahay sameynaa inspectorka tag marka responsive nimadiisa ayaan fiirinaynaa waad aragtaan markii aan yareeyo shaashada sawirka kor ayuu imaanayaa oo asaga ayaa ugu hormaraya fieldiga ama inputka iyo bottomka waad aragtaa waxay u muuqdaan marka qaar isku dhagaya ama wax space ah ma lahan space ayaan u sameynayaa ayagana inta imaaw gather of 3 okay fiiri waad aragtaa hadda way kala foqsan yihiin shaashada ii weynay marka okay waxaad kaloo sameysaa formka waxaad tiraahdaa margin 2 okay waa isku mid marka waxaad aadaa marka sectionkan waxaan soo dhameynaa marka hero sectionka dirtaan waxaan ku xijinaynaa marka qaybtan kale waxaan ka bilaabayaa marka inaan sectionka contentiga aan qoro okay ii copyay marka qoraalka ugu horeeyo team section waxaan leeyahay marka halkan section id of u baahanaa loo yaqaano team waxaan leeyahay waxay u sameysaa containerkaas wuxuu leeyahay marka rowgaas wuxuu leeyahay column kaasoo ah marka 12 normally laakiin large screenka wuxuu noqonayaa 8 okay h1 basta markaad tiraahdo qoraalkaa wadatid dan waxaad sameysaa marka class u rabaa inuu ahaado marka display sex font weight bold inta waxaan ka rabaa marka columnkan oo kale laakiin waxaan ku kala duwan yahay halkan inta waa 4 waxaad sameysaa halkan soo import gareysa marka imageki okay haddii aad rabtid marka isla same designkan oo kale inaad ila sameysid laba option ayaa kuu furan inaad ka soo qaadatid marka meesha loo yaqaano front end mentor oo aad ka heli kartid marka imageska oo idil oo designkan lagu sameyn lahaa
ama waxaad kaloo samayn kartaa descriptionka ayaa waxaan ku dhigayaa marka GitHubkayga oo aad ka heli karta marka dhammaan source codekan. Okay, waxaan rabaa Illustrator 2 waa imageka lamaad. Iskaga qortaa marka team. Markaan intaan sameeyo aan kaloo u baahanahay orderkiisa inaan saxo. Waxaan leeyahay order waxaad ka dhigtaa order first markii caadiga markii small screen la joogo, laakiin order LG last ka dhig. Okay, intaasna waa sameeyey. Waxaan soo fiirinayaa marka wixii aan sameeyey outputkiisa. waad aragtaan hadirtaan intaan ayuu inoo soo muujiyey. Waxaa naga maqan marka oo aan ilownay waxaa jira marka image, laakiin ma arki kartaan haddii aan isku dayo inaan soo zoom gareeyo. waad u jeedaan waxaa jira image oo curve ah, kaas ayaan soo gelinayaa marka hadirtaan koodka tag CSS-kaaga waxaad wacdaa marka team ID-ga waaye background image ayaan rabaa URL imageka access garee marka waxaa loo yaqaana bg curve background position center tirahdaa background size cover tirahdaa andala background repeat none. taas waxaan ku sameyna marka backgroundki inagey marka keena waad aragtaan marka waxaan soo geliyey imageka backgroundka ahaay. waxaan ku dareynaa marka qoraaladii kale oo ahaay sida kan oo kale koobi gareyso marka waxaad imaadaa marka qaybtaan paragraph. waxaan u laabanayaa qaybtaan kale paragraph kale waaye. waad aragtaan marka ayagana waa kusoo daray. waxaan kaloo sameyneynaa inaan bottomka sameeyo. enter bottomka waxaad tirahdaa marka waa btn oo outline success. waad aragtaan marka hadda btn-ki ayaan kusoo daray, laakiin haddii aad inta fiirisid marka waxaa jira marka icon yariis ah oo kasoo muuqdo marka halkan. waxaan kusoo darayaa marka iconkan isticmaalayaa marka bootstrap icons. halkaas taaba marka icons ay ku qoran tahay iconka rati search gareyso waxaad ka raadisaa marka halkan gareyso. waxaan tagayaa marka koodkeyga waxaan sameeyey marka waan ku post gareeyey iconka waa kana waa soo geliyey. hadda waxaan tagaynaa marka websitekeena. waad aragtaan lama arki karaa dirtaan. waxaa loo baahan yahay marka inaad soo import gareysid marka linkiga waa inaad soo import gareysaa marka linkiga loogu talagalay marka in laga access gareeyo. waxaad tagtaa marka qaybta hoose waa kana marka waxaad soo kobiyeysaa marka linkigan. waxaad imaadaa qaybta kore halkan ayaa dhigaya bootstrap icons paste garee marka tagayaa marka websitekeyga. waad aragtaan waxaa soo muuqanaya marka btn-ka, laakiin waxaan dareemayaa inuu aad close ugu yahay. waxaad sameysaa inaad ka sikisid. waxaan ku tusayaa marka fiiri waxaan u bixinayaa halkan space badan. waxaad tagtaa marka inta waad aragtaan wax space ma jiro marka html-ka ma aqoonsan karo marka space noocaas oo kale ah. waxaad sameysaa qaab oo ku aqoonsan karo ayaa jirto. waxaad tirahdaa hadirtaan marka uu fahmayaa meeshan inuu space jiro. waad aragtaan marka haddii aan badiyo fiiri waad aragtaan mar walba aan sii badiyo iconka iyo textiga oo kala sakanaya. halka saxba ayaa iga badan. sectionkan marka intaas ayaan ugu baxay. waxaa inoo soo haray marka inaan sameyno marka kaadhka ayaan design gareyn doonaa. waxaad imaadaa inta
cardka waa isla same sectionkii laakiin row kale ayuu ku jiraa. The end of rowgan marka waxaad samaysaa row kale waxaa leeyahay columnkiisu waa 12 markuu caadigan maya columnkiisu waa 10 waxaan kaloo leeyahay marka large screenska hada marka 6 waxaan kaloo raacsiinayaa offset ayaan rabaa offsetkiisu waa offset of 0 markii large screenska la joogo offset of 1 markuu yahay marka small screenska kadib waxaan leeyahay kaarkaas oo leh marka padding b oo 4 ah okay hadeertan waxaan fiirinayaa waxa sameey waad aragtaan kaarkii oo empty ah ayaa soo muuqday waxaad tagtaa marka halkan waxaan rabaa iconka marka inta ku search garee iconkan ayaa u baahanahay koob gareyso marka waxaan tegayaa kaarkii kubeysta garee waxaan kaloo rabaa inaan sameeyo marka contentigan ii koob garee waxaad imaadaa halkan waxaan fiirinayaa marka sida uu soo muuqdo waad aragtaan soo u soo muuqday waxaan sameynayaa marka okay contentigaas iisii qaad iyo imageka kaarka inaan soo geliyo halkan imaam marka waxaan sameynayaa waxaa loo yaqaano userkaas marka wuxuu leeyahay marka user markaad tiraahdo wuxuu leeyahay avatar okay oo imageka aan soo gelinayo marka waxaa ku qorta user waxaan leeyahay marka okay wordskiisa marka ayaa inta ku sheegayaa okay waxaan ka dhigaa markaan 60 si waxyar oo u muuqdo marka mid weyn ah waxaan sameynayaa marka inaan rounded ka dhigo marka wax badan uguma baahna marka css-kiisa iyo reference inaan sameeyo iyo kadib inta soo access garay meesha ayaan ku qorayaa marka border radius 50 pixel marka dartan waad u jeedaa rounded ayuu noqday waxaad sameysaa marka contentiga kale oo ku qoran marka qoraalkan waxaad dhahdaa marka asagana waa span ma baahna marka waxay u muuqdeen marka qaabsaana ma baahna marka inuu qaabkan noqdo waxaan ka dhigaynaa marka si qaabkan oo kale waxaad tagtaa marka koodkaaga waxaa loo yaqaanaa difkooda waa user display flex waxaa kaloo tiraahdaa okay align item center align item center waad ujeedaan waa center waa deertaan waxaan kaloo u baahanaa marka waxyar inay kala fogaadaan gap of 3 okay waad ujeedaan marka waa kala sigtay intaas marka waxaan ugu baxay sectionki kale oo aan ugu magac daray marka team sectionkan ayaan u gudbayaa marka waxaan laga rabaa marka inaan sameeyo qoraalkan iyo email fieldigan marka waa gabagabo hawsheena okay qoraalka isu koobiyey okay comment horta send email section sana marka send email waxaan rabaa marka inaan sameeyo container row u baahanahay row kalamkiisa ii noqdo marka okay large screenka waxaa ugu baahanaa marka okay class of waxaa ugu baahanaa marka display 6 font weight bold okay waxaad tagtaa marka css kaaga leedahay id oo waxaa jiray sandy email background colorkiisu waa garana marka variable-ki oo ah marka colorkiisu noocan maadaama halkan waad aragtaa waxay noo samaysan marka page 1-ki
Paragraph-ka marka textigiisu waa white. Marka qaybta hoose waad aragtaan marka text white ayaan siiyey. Waxaa kaloo sameysaa formkii column-kan marka iga xir another column kale, column 12 ah iyo column lg6. meeshaan marka waxaan ka iloobay lg. waxaad tagtaa qaybta hore marka oo aan ku sameeyo formkii. waan soo dhaafa marka soo koobi garaysa marka sidiis asoo ah. kadib haddaa marka columnkii aad sameysay hadartaan ku paste garayso fiira marka waa kan marka waxaa kaloo inaga dhiman kasoo baxnay marka sectionkan waxaan u gudbaynaa marka footerka kaasoo ah marka lastigi. hadii hadda halkan leeyahay section commentigan ka iloobay waxaan leeyahay marka waa section kale kaasoo leh marka id loo yaqaano footer. footerkaas dhexdiisa waxaa ku jira containerkaas wuxuu leeyahay marka logada waxaa ku dhex jira marka imagekaasoo ah marka logo white logo la iska dhintane. waxaa sameysaa class markaad sameysid widthkiisa waa 25. footerka marka halkan imaaw waxaan leeyahay waa jiro section loo yaqaano footerkaas oo leh marka background color. colorkaas ayuu leeyahay marka aan fiirino koodkeena. waa kana waad aragtaan. ku xijinayaa marka inaan sameeyo halkan phone numberka isii koobiyey. waxaa laga rabaa horta ugu horreyn 4 column. waxaad tagtaa marka koodkaaga waxaad ka tagtaa sectionka aan footer dhahne. wuxuu leeyahay rowgaasoo leh marka column. waa inaad ku xisaabtantaa marka columnka waxaan ugu baahanahay caadiyan waa 12. waxaan kaloo u baahanahay column oo ah medium screen kaasoo ah marka 6. waxaan kaloo u baahanahay column oo ah large screen kaasoo ah marka 3. waxaan u baahanahay 4. midka ugu horeeya marka waxaan sameynayaa inaan soo geliyo waxyaabihii laga rabay. midka ugu horeeya marka wuxuu ka kooban yahay andala row kale ii sameeye. rowgaas kale wuxuu leeyahay column 12 ah. waxaan gelinayaa marka span soo qaadayaa marka iconkii tagtaa bootstrap icons waxaad ku qortaa call paste garaysaa halkan. textiga waa white. inta imaa marka waxaad tagtaa footerka textigiisa waa white. wuu isku dhegan yahay marka waxaa leedahay gap of 2 gutter of 2. midi kale waxaa sameysaa margin top 4. halkan wuxuu u baahan yahay inaan sameeyo marka aan istamayo 20 pixel. waxaad leedahay flex line item center and then waxaan kaloo u baahanahay mid kale oo aan gelinaya marka emailkii envelope oo fill ah.
okay meeshan waxaa ugu baahanahay row kaasoo leh column. waxaan ku xisaabsanayaa wuxuu leeyahay column oo 2 alif ah ilaa 4 mar ayuu soo laabanaya. hal mar ayaa ii samaysan. horta about anchor horta dheh about us tag marka halkan. okay meeshan waxaa ka jira marka error wuu soo laabanaya marka about marka sidan ayuu noqday. okay meeshan wax ayaa ka jira waan saxaynaa waxaa soo idan. waxaan ku hormaraya horta inaan saxo qaybtan fontska ee isku dhagan. waxaa tagtaa marka columnka bilowga ahaa meesha display flex ka dhahay waxaad tirahdaa gap of 2 kana waxaad tirahdaa gap of 2 envelope waa kan kale. okay asagana waa samaysmay. waxaa samaysaa inaad iska tirtirtid kolomyada kale oo ilaa 4 xaba aan tirinay. waxaan samaynayaa marka hadda halkan class layer text decoration none text color white. waad aragtaan markaad dirtaan soo u muuqdo. intaas ayaan rabaa marka 4 xabo inaan ka sameeyo 1 2 3 waa 4 xabo. gap u samee marka ama gutter of 3. halkan imaan marka about ay noo samaysnay. midka kale waxaan ku magacaynaa marka inuu yahay jobs. sectionkaasna sidaas ayaan ku dhameeyey. kanne waxaan samaynayaa inaan kan koobiyeeyo ayaan ka buubuuxinayaa marka waxyaabaha aan rabo copy. okay waxaad cuntaa marka midka kale aan inta ku samaynayni isagana waxaan leeyahay waa contact us. waxaan kale u bixinayaa marka midka kalena inuu yahay Teams. midka saddexaadna waa privacy. okay kan soo harina iska delete. intaasna waxaa ugu baxay qaybta labaad. okay waad aragtaan waxaa inoo dhimaan marka qaybta social media iconska ahay. iconska ayaan rabaa marka inta inaan soo geliyo. waxaan rabaa inuu ahaado ka ii sameeya marka div loo yaqaano icons. waxaad dhahdaa marka waxaa waadaa marka class oo ah bi kale dash ugu horta Facebook. midkan ayaan rabaa inaan soo celiyo marka 3 mar. halkan waxaad tirahdaa marka whatsapp. okay midka kalena waa Instagram. kale u baahanahay halka dhexda ku jiro iconska awi kana waxaa leeyahay margin x axis of 2. waxaad igeysaa halkan iconska ma la arki kara marka markii aan backgroundki iyo waxyaabaha aan rabo aan u sameeyo ayaad arkaysaa. waxaad imaadaa halkan waxaan leeyahay waxay ka tirsan yihiin footer sectionka. waxaa loo yaqaanaa icon meesha ugu hooseysa jiraan. hore waxaad tirahdaa text. okay colorkooda waa white. waad ujeedaan meeshaan imaaw aan ilooga horto inta ayaan flax ugu dhigayaa of 3 aan ka rabaa meesha. halkaana sidoo kale meel kale ma jiro waa 3. intan waa the same. okay intaas waa marka halkan waxaad ku samaysaa display flexing. okay waxaan kaloo u baahanahay justify content center. fiirmkagan waa saxanahay marka waxaad samaysaa width of 40 pixel. heightku waa 40 pixel.
display flux, justify content center, line item center. intii xmarooyin ma aad fahmi kartid borderka markaan u sameeyo ayaad arkaysaa. border waxaan u baahanaa 1 pixel solid ah white ah. iconiska centerka ma yaalin si fiican. waxaa dhiman oo keliya border radius oo ah 50%. waad aragtaan meesha kalena waan dhameeyey. waxaan u soo laabanayaa marka inaan saxo kaarka. wuxuu ku jira marka team sandii meelka dad team waa halkan. horeen waxaad tirahdaa kan bold ka dhig. want to wait bold. waad aragtaan isla marka bold ayuu isku bedelay. rowga kaarka tag marka margin topkiisu waa 4. waad ku mahadsantahay marka daawashadaada. haddii aad wax ka faa'iido marka ha ilowin marka janaalka inaad subscribe saartid oo la wadaagtid marka muuqaalkan asxaabtaada kale oo jecel inay sameeyaan ama inay bartaan codinka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.